waxaa maanta magaalada Burco si heer sare loogu soo dhaweeyay gudoomiyaha garabka dhalinyarada heer qaran ee xisbiga mucaaradka ee wadani iyadoo dadweynaha aad u tiro badan oo wata gaadiid ay kaga hortageen duleedka degmada Qoyta dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada Burco soo dhaweynta ballaaran ee loo sameeyay waftiga heer qaran uu hogaaminayo gudoomiyaha garabka dhalinyarada heer qaran ee xisbiga mucaaradka ee wadani kadib waxaa halkaas hadal soo dhaweyn ka jeediyay mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani iyo gobolka Togdheer halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa maanta magaalada degmada Qoyta ee duleedka magaalada Burco garabkii dhalinyarada heer qaran xisbiga wadani gudoomiyihii xogayihii iyo garabadii kale xogayihii isla maaliyadda dhammaan waxa filayaa in aanay loo kala hadhin maanta iyagoo bariyahanba ku hawlan inay gobolada Soomaaliland oo dhan ku maraan socdaal iyo indheendeen iyo dirdirgelin halkan baynu ku soo dhaweynaynaa waxaan leenahay soo dhawaada baan leenahay ku soo dhawaada gobolka Togdheer كل هذا القوي يجن كوري جدنا وسود وينا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل كان وقويتا وحرمان تودن من عدو تاجنين إن المرحض يظهر قرن أن كسود وينو فرحات قلب فران قعمة فران كسود وار قبل كي تقدر حسبي قبل كا أضيت هاي مرحض xisbiga ee gobolka haday tay taageerayaashii aad baan idin soo dhaweynaynaa waxa isna dhankiisa ka mahad celiyay soo dhaweynta ballaaran ee loo sameeyay gudoomiyaha garabka dhalinyarada heer qaran ee xisbiga mucaaradka ee wadani Maxamed Sidiiq Dhamme iyo qaar ka mid ah xubnihii uu hogaaminayay hogaanka guud ee gobolka Togdheer oo lagu soo dhaweeyay degmada Qoyta soo dhaweynta oo u aragno inay tahay maamuus oo ku faraxsanahay waxaan u soconaa safar shaqo oo garabka dhalinyarada heer qaran ka bilaabay lugtiisii koowaad magaalada gobolka Togdheer magaalada Burco safarkaas oo daaran dardargelinta hawlaha dhalinyarada maadaama doorashadii lagu soo dhowdahay qabiyatirka iyo dhisidda qaybaha dhismayaasha degmooyinka laamaha iyo gobolada u baahan garabyada ee aan wali la dhisin iyo kuwii jiray koruqaadidooda iyo habeentooda iyo hagaajintooda waxaan caawana kala qayb gelaynaa garabka dhalinyarada Togdheer qorshe barnaamij ballaaran oo ka dhici doona Deera Hotel kaasoo la yiraahdo doorka dhalinyarada iyo xisbiga wadani oo lagu soo bandhigayo qabiyo qoraalkii barnaamijkii la dhameystiray ee xisbiga tiirkiisii dhalinyarada kaas oo la wadaagayno dhalinyarada aqooyaha ka Burco barnaamijka xisbiga wadani waa barnaamij daafuran waa barnaamij wax ku darsi kaabid kobcin ka doodid iyo kordhin u baahan waana barnaamij loogu talagalay dhalinyaradu inay saameyn ku yeelato sidooda ugu darsadaan aragtidooda aqoontooda iyo fikradahooda waxaan dareemaynaa Soomaaliland inay tahay maalintii dhalinyarada xisbiga wadanina wuxuu asxaabta kale kaga soocan yahay waa xisbi dhalinyaro waa xisbiga adarkaysan dhalinyaradiisa hogaankiisa iyo qaab dhismeedkiisa sida uga muuqdaan taasina waxay muujin doontaa taasina waxay calaamad iyo tusaale u tahay haddii Ilaahay qadaro dhismaha dawladda xukuumadda markuu noqdo xisbiga wadani inaynu qayb leh wax ka noqon doono inkastoo aanay hadiyad ahayn ay tahay halgan in dhalinyaradu ay muuqato qabato manaasib sare haddana waxaynu u baahannahay dhalinyar ahaan inaynu awooddeena iyo aqoonteena aynu isku barbar taagno xisbiga wadani oo ah xisbi dhalinyaro waxaan joogi doonaa Burco laba cisho inuu qorsheysay yihiin qorana hawleedyo garabka dhalinyarada shiraraan ula leenay iyo insha Allah caawa ka qayb geli doono caways runtii ku cusub cawaysidii Soomaaliland ka dhici jiray xaflad lagu soo bandhigayo barnaamijka xisbiga wadani qaybtiisa tiirka dhalinyarada waxay la socdo hogaankii garabka dhalinyarada heer qaran oo dhamaantood wiilaliyo gabdhaba waad mahadsantiin mar labaad iyo mararka dhamaan waad mahadsantiin sida quruxda badan gobolka Togdheer iyo degmada Qoyta sida lagu soo dhaweeyay anagoo ah wafdi ka kooban gudoomiyihii garabka dhalinyarada heer qaran Maxamed Sidiiq Cabdilaahi xogayihii garabka dhalinyarada Aftah Saciid iyo khasnajigii Filsan Cabdiraxmaan aad iyo aad intaad nasugayseen iyo sida noo soo dhaweyseen waxaan u soconaa anagoo ah hogaankii garabka dhalinyarada xisbiga wadani program weyn oo ballaaran oo ah doorka dhalinyarada ee xisbiga wadani oo habeen dambe caawa ka dhici doona magaalada Burco waxaan u soconaa dardargelinta iyo hawlaha
dhalinyarada iyo guud ahaan xisbigaba xisbiga wadani waxaanu la soconaa inuu yahay xisbigii dhalinyarada sidaa aad ka wada muuqataan waxaanu filaynaa xisbiga inaynu ka hawlgalno hawlihiisa arrimihiisa insha Allah waxaan mar labaad iyo mar saddexaad idiga mahad celin barwaaqo aadan maxmed shabakada caalamiga Odweyne News magaalada Burco.